ويارتان محاربة محمد لو جانب حقلقات جانب وجانب كأ إن شبكة واردين تعبان واردين تهويا أباها وعلى حين عرنتن حوجان لك نقطان حفيسيدا دنبيدا كورتو كشقين لا شقيا marka waxaan rabaa hooyada iyo aabaha Soomaaliyeed inay fahmaan maxarintan la xiriirsan tahriibka iyo gafaha burayska uu ku hayo inaad ku ribood galayso tayada hoosiis waxaan rabaa inuu qofka koobaad waalidka iyo hooyada dhiban inay taas fahmaan arinta labaad waxa weeye saanta la xiriirsan waxa weeye qof kasta oo Soomaaliyeed oo muwaadin sharciyan wuxuu ku waajibinayaa xogaha la xiriirsan dambiyada hadduu xogaha ku noqdo inuu hay'adaha khusayso la wadaag walibana xafiiska xeeladaha guud ee qaranka wuxuu leeyahay inaad dambiga communicationkiisa si sax ah la samayso adoo coverkaadi lagu qaramay nambaraa jira la soo garaaca gaaban emailaa jira la xiriiro adoo qaanin dambiga xogtiisa bixin kartaa adoo aan adigu aadan qayb ka noqonin in xogtaada la ogaado marka haddaad ogaatid goob aad ganacsi ku leedahay goob aad ka wargeyso ugu dhow si aad u wargelin karta hay'adaha dambiga ka shaqeeya si ay talaabada ku habboon uga qaadaan dadkaas silsiladaas ama shabakadaas xiriirkaas ku dhex jirta waxaa loo baahan inuu qofka muwaadinka ee caadigaana fahmo in arrintan haddaysan maanta adigu ku haysanin oo adigu aadan ahayn waalidka baraambare oo oynaya oo rafaasan oo wiilkiisii ta la dedejiyey saad isku looyay ugu maqan tahay inta la yiri community wax shabakada xirka ka hesho asoo suuleed ka soo hadlay oo maqlay haddaysan adiga maanta ku haysanin beri way ku qabsan marka waxaa baahan horta jaanibkaas in halkaas laga fahmo jaanibka labaadoo waalidiintu ay dadka ay fahmaan waxu baahannahay waa dadka dambiga tahriibka gala xafiiska xeeladaha guud ee hay'adaha dambiyada sharafta u dagaalama dadkaas la tahriibinayo forsiga iyo xoogga iyo qasabka lagu qaatay annaga ma naqaana dambiilayaal marka waalidkan waxaa rabaa masoo inay fahmaan dadkaas inaysan noo ahayn dad dambiilayaal oo annaga aragno sidii kii wax tahriibiyey kii tahriibka isku kaamid yihiin labada maxkamad isla geenaya marka taana waxaa rabaa dadkaas inay ka fahmaan oo ummadda Soomaaliyeed ay ka shaqeyso inay fahankaas wacyigaas maanta fariintaas ay fahmaan ah inay wargeliyaan hay'adaha dambiga la xiriirsan si dambigaas si wada iskaashi oo wada socda oo la isla ogayahay dambiga loo waqti dadaal badan baa socda inta la xiriirsan arrinta socota arrin qaxar weey waa musiibo mid Soomaaliya ku dhacaysa gabar iyo hooyo iyo wiil iyo waalid kulligood waa la barabalaya kuwa la aqoon naftooda meelay jirto kuwa la aqoon xirsiga ku jira la garanay musiibo qaran u baahan yahay qof kasta inuu ka qayb qaato waa loo baahan kiisaska tirada badan wax fiiska ka socda waxaa ka mid dad dawladda ka shaqeeya oo qayb ka ah farsamooyinka noocaas oo kale waxaa rabaa halkan ayada inay uga faa'iideysto dadka xil dawlad loo dhiibto noocu doona ahaad meeshii doona xilka ka hayaan inaysan marna qaybeysa ka noqon in dambiga noocaas oo kale tahay qofkii lagu helo waa hada xoogahooda ayna daba socnaa qofkii lagu helo waxaan ballan qaadayaa ummadda Soomaaliyeed kuma la qaadayaa in loo daawo si case point loo daawo jiro kaasoo ku dhex jiray la dawladdu shaqeeya